madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali khayre madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug golayaasha dawladda heer federaal iyo heer state bulshada rayidka ah dhammaan marti sharafta kale halka joogta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waxay tahay caawa habeen farxada waa habeen taariikhiya waxaa ilaahay mahadiisa inaan habeennimo ku shirayno oo nabad ku shirayno oo qurux iyo wanaag badan oo ka muuqata aan caawa halka markhaanti ka nahay annagoo og maalmo badan oo la soo dhaafay dalkeenna siduu u ekaa khaasatan magaaladan si ahaan jirtay waan uga mahad celinayaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo dadka reer galmudug dhammaantood aad baan uga mahad celinayaa soo dhowaynta iyo sida diiranayna loo soo dhoweey waxaan sidoo kale marka ugu horreeya jeclahay inaan u mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha oo runtii shirka wajigiisii labaad nagala soo qayb galay si kalsami ah oo niyad sami ah muujiyey muddadii hadda dhowrka cashahayd aan wada joognana runtii wax badan oo muddo taagtaagnaa noo sahashay in aan ka gudubno arrintaas waan uga mahad celinayaa xaqiiqda warkii baryahan aan nalaga sugaayey waxaa akhriyey laga akhriyey halka nuxurkiisuna waxaan filayaa dadka xooggiisu inay la baxeen maanta waa maalin taariikhiya muddo waxaa taagnaa dabcan inkastoo dadku aad ii wada fiirinaya laakiin waa iska kafta badna waa kaftamaynayo kala taagnaan badan baa muddo jirtay madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo dawladda federaalka ah waxay noqotay guura raac iyo carruur waa loo kala sheekeeyaayo markii la wada fadhiistay wax badan baa runtii meesha ka baxay waxaan aad ugu faraxsanahay runtii kulamadii fiicnaa oo dhacay iyo sida wanaagsan oo niyadsamida leh ee loo wada dareensanaa in marxaladdan dalka meesha uu marayo loo baahan yahay midnimo qaran iyo in lagu wajaho xaaladaha dhabta ee jiro si aragti midaysan ah doodo dheer kadib arrintaas runtii waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaha dawladda federaalka oo runtii muujiyey dulqaad iyo odaynimo runtiina gogashaan maanta la fadhiyo wanaaggeeda la dhihi karo isagaa iska leh saan ogsoonnahay dhammaanteenba halka looma kala harin waxaan iyagana jeclahay si gaara inaan ugu mahad celiyo xildhibaanada iyo aqalka sare xubnaha ka jooga oo runtii aan tiro aad u fara badan ay halka joogto 100 kor u dhaaftay xildhibaanada aqalka hoose keliya waxay iyadana muujinaysaa inay iyagana diyaar noola ahaayeen waxa aan rabno inaan ka shaqayno inay gacan nagu siiyaan waxadooda dadka wax laga dhexdhexayaan bay ahaayeen xildhibaanada iyo istiidyada xoogaha waxbaa ka dhexeeyaan oran jiray laakiin waxaan rabaa inaan u caddayno inaan annaga diyaar u nahay inaan la shaqayno kursigu waa iska macaanye oo hadday rabaan inay sii joogaan oo marlabaad la soo doonto xataa waa kala shaqaynaa doorashada ka baqin oo mararka qaarkood xildhibaan baan ahaan jiro doorashada waa laga baqnaa marka waxaan rabaa inaan nidhaahno madaxda anoo afkooda ku hadlaya ragga waa soo wada dhaweynaynaa ilaahay xisbaadka dalkeenna dantiisa dalkeenna horumarkiisa ku jira aamin baa ku jira
doorasho ka dhici lahayn dhowr bilood ka hor quruxda maanta leedahay inay doorasho dhacdo waxay daliil u tahay in caqabad taagneed laga gudbo marka waxaan rajaynayaa inuu dadka doorashada uusan ka baqin waxaase muhiim ah tallaabo kastoo la qaadayo in wada ogol ahaato la iska ogol yahay waxaa hadda aan halka ku gaarnay waa hordhac iyo tilmaan laakiin u baahan waxaan bixin iyo cid kasta oo iyada ruuxaddooda ra'yi haysa in la siiyo waqti iyo space ay ra'yigeeda ku darsato oo aan rajaynayno inay wax badan oo qurux badan ay ku soo kordhiyaan hadalkayga ya hadalkaaga malaha la rabinay ya codkaygaa dheer haddii la jarana waa iska hadlayaay ka kiciyo madaxweynaha ruuxaddiisa waxaan tartan fiican uu galo annaguna hareeraha qabanno marka insha allah dhib badan ma jiro ragga naga maqan oo xoogaa cabsida ku jirtana iyagana waxaan rajaynaynaa inaan garab fiican siinno aad baa u mahadsantihiin haddii aan madaxweyne qoorqoor hadalladii uusan jeclayn aan uga dheeldheelina isagaa gogosha fidsaday oo iska dulqaabta raalli ha ahaado waa mahadsantihiin